ogow dawladayda afada manaha iga saaran ogada afada manaha iga saaran ogada uma arkaysan karayo anayo wode ilmaye dawladayda aragtaye waxya qabo wasiir waxa weeyaan fasalkan waa fasalka ARB dugsiga waa saddex qurac dheer waa fasalkii uu inoo sheegay gudoomiyaha waxbarashada Xuseen uu inoo sheegay lahaa waa fasalkaygii anigoo maamulihii dugsigaana fasalkan waa ARB oo fasalkayga aan ka baxay iskuulka markaan ka baxay waana diyaarsan waxa weeyaan iyaga laftarkooda kale way ku warrami doonaan waxay u diyaarsan imtixaankii iyo shahaadiga iyo hawlaha dhow u diyaarsan waa qolo aad u tababarano 15 cishe iskuulku fasaxa ahaa dugsiyada dawladdu fasaxayeen iyo ma dugsiyada Soomaaliland oo fasaxayeen iyaguna way diideen anaguna waan diideen aan fasax galno oo waan faa'iideysanayno maalintii saddex xiisood baan dhigan jirnay imtixaankii mas'ala kelmad dardaarna waxaad ku soo dhaw imtixaankii shahaadiga ahaa ee sanad dugsiyeedkan 2019-2020 waxaa la qaadayaa bisha June bilowgeeda toddobaadka koowaad dadaal fara badan baa idinka baahan inamada si gaar ah waxaan ugu dardaarmayaa qofku inkastoo isaga baahan inuu ciyaaro jimicsado haddana ciyaartana yareysaan inta badan wax akhrisataan hablahana inta wax baranaysaan iyo markaad xaafadda hooyiya caawinaysaan mooyaane waxaa loo baahan inaad dadaalkiina dhan isugu geysaan saas Somaliland lambaro kugu geli lahaydeen anigu berigaan eerkeydikoo kale ahaa berberaan ka soo baxay Somaliland oo arday u fadhiisatay lambaroonkaana u galay maasha Allah iskuul dawladeedna waan ka soo baxay siinoo kale iskuul dawladeed baan dhigan jiray waxaan kaloo anagu naga maqnaa berigaa xataa bugaagta imika idinku haysataan madaxweynuhu idiin qaybiya anagu maan haysan markaa fursado badan baa haysataan gudoomiyaha waxbarasho dadaalay haysataan wasiir baa idila jooga markaa danaynaya waxbarashadii idinkuna dadaalkaasi inuu ka muuqdaa la doonayaa markaa ballanteenu maxay tahay kaalinta imsaana gashaan baad doonaysaan imisa doonaya kaalinta koowaad galaan dadaalkaas markaa wasiirkana kusoo dhaweynaya aad baa baasad waxaan doonayaa inaan idiin sheego maamulo fiican iyo guddoon waxbarasho oo fiican iyo agaasimihii oo aad aragteen oo wanka galay Soomaaliland oo dhan oo isaguna arkaysaan maskaxdiisa ilaa aad u isbedesho xagga wanaagsan haddaad isu bedeshana ilaahay uu kula garab garaya xagga xun haddaad isu bedesho iyadoo kalaaska lagu jira aad caruurta gugujiso tira waryaa walaakna aad tirahdana de xagga xumeed baad u socotaa ogow waa signal muujinaya mar haddaad aragto kalaaska ciise mid sheekeynaya waxay muujinaysaa inuu leeyahay dhinacii qaldanaa baan u socdaa mid dagaalamaya haddaad aragto ama wax caayaya kuwii berigan yareyn dagaalami jiray cawaadiinta haya atoorin jiray oo dhambi markii dambe nolosha way ka saaqideen way xooggii wuxuu saaray maskaxdiisii xoogde inuu isticmaalo soo maaha de libaax ayaa ka xoog weynaya maroodiga haddana dadka rarta soo maaha markaa maroodiga caqliga iyo xoogga keebaa importansan caqliga waxaan kaloo idin sheegayaa iskuullada dawladda dacayad baa lagu furaa aan jirin oo propaganda anigu aan sidii ganacsi baa ka dambeeya waxaa la odhanayaa iskuulkii tayadiisi baa xumaatay tayada maxaa lagu cabiraya imika markaan tayo sheegayo biology imika markaad qeexayso biology baan dhigta biologyga maxaad odhanaysaa maxaa lagu qeexaya barashada nolosha iyo soo lama idho is the study of living soo maaha dee tayo markaan leeyahay waa inaan saa u qeexi karo afka uun haddaan ka idhaahdo tayo markaa tayadiina waxaad garanaysaa iskuulkiinaaba ugu qurux badan dee iskuullada halkan markaa ninkan idinku idhaahda kuwaasaa tayo fiican waxaad weydiisaan maxaad ku cabirta waxaynu nidhi iskuulladaynu siinanaa abaalmarin waxaynu siinanaa gobollada degmooyinka iskuulka maamulaha ugu fiican macalinka ugu fiicnaa ardayga ugu fiicnaa laakiin sidee loo qiimeynaya dee maaha uun imtixaanka uun haddaan halka sare top 10 iskuulladii waxaa dhacday dabeetana qaar baa inamadii iyo hablaha iskuullada ugu sarreeyo inuu odhan jiray kaale markaa taasi macnihii bay ka luminaysaa soo maaha imika waxaynu odhanaynaa markaa celceliska mediumka waxa weeyaan waa nambarka boqolkiiba 50 ardayda ay ka sarreeyaan boqolkiiba 50na ay ka hooseeyaan waa nooc celceliska ka mid ah deetana waxaa la odhanayaa imisa boqolkiiba
iskuulkaasaa noqonaya iskuulkii ugu fiicnaa waxa ku dartaanuun akhlaaq iyo edeb iyo qofku dee hogaamin inuu yeesho mas-uuliyadiisa saaro weliba hablahana waxaan leeyahay waa la niyad jabiyaa hablehe waxaa lagu yidhaha naas ka joog kol ninun baad guursanaysaa ma kol baad xafiisa oo inan kuba miyaanu inanu guursanayn dee soo maaha dee marka ayaan laydinku niyad jabinaya ilaa aad noqotaan PhD aad qaadato nolosha waad manage garan kartaa dee namaduna waa la mid isagoo reerle haddana wuu shaqaysan karaa hal su'aal baan idin weydiin oo kaga tago iskuulkiinu iskuulada kale muxuu kaga wanaagsan yahay muxuu kaga xun yahay su-aashaada haddaan usoo noqdo iskuulkayga wuxuu kaga fiican iskuulada kale wax wada qabsi anaa ka mid ahaa maamulaha iyaga macalimiinteeda maxay si fiican wax wada qabsan wada arkay bilicda mudane waxbarashadeeduna aad bay u sareysaa waxaana rajeynayaa inaan guul weyn usoo hayno iskuulkayga quracdheer kaalinta koowaad kaalinta labaad inaan intaba galnaan rabnaa mudane marka magacaygu waa Hayad Cabdi Cali mudane wasiir waxaan ka dabanaynaa inaad u samaysid iskuulka gabdhaha suuliyo meel ay habluhu ay galaan oo qol aad u samaysid inaad inamada u samaysid meel garoon ay ku ciyaaraan kubado marmarka waa dhiganeen noogu samaysid shabagyadii waxaan ku dhiiri karin inaad hablaha u samaysid suuliyo qol ay ku nasasta qolal ay ku nastaan